kulan lagu qiimeynayay waxqabadka barnaamijka dib u dejinta iyo aqoon isweydaarsi dhex marayay tuulooyinka hoos yimaada degmada Goday ee laga hirgeliyay barnaamijka dib u dejinta ayaa ka qabsoomay magaalada Goday. Kulankan ayaa ahaa mid lagaga wada hadlayay waxqabadka barnaamijka dib u dejinta kaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin isugu jirtay heer deegaan iyo heer degmo iyo bulshada dib u dejinta loogu sameeyay tuulooyinka hoos yimaada degmada Goday. waxaana uu horeyn ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga dowladda Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Maxamed kaasi oo tilmaamay faa'iidooyinka uu leeyahay barnaamijkan wuxuuna hoosta ka xariiq si uu barnaamijkan u hirgalo in loo baahan yahay si wadajir ah looga qayb qaato si loo xaqiijiyo qorshahan isbedelka kobaca dhaqaale ee 5 sano iyo waliba jihooyinka lagu dhimayo saboolnimada. sidoo kalena gudoomiyaha degmada Goday Mudane Siyaad Maxamed ayaa isagna ka warbixiyay halka uu marayo barnaamijka dib u dejinta ee ka socda degmada Goday wuxuuna mas'uulku sheegay in barnaamijka dib u dejinta uu socdo sidii loogu talagalay. haddaba kulankan oo ahaa mid lagu qiimeynayo waxqabadka barnaamijka dib u dejinta degmada Goday isla markaana khibrad wadaag ay ku kala qaadanayeen bulshada dib u dejinta loogu sameeyay tuulooyinka hoos yimaada degmada Goday ayaa iyagana sheegay in nidaamkani uu wax weyn ka bedelay noloshooda. waxaana gabagabadii shirkani abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay xubnihii kaalmaha fiican ka geystay barnaamijka dib u dejinta. qaar ka mid ah shacabka abaalmarinta la guddoonsiiyay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana sii dardar gelinayaan dadaalkooda ku aadan barnaamijka dib u dejinta tafaaska ka socday degmada Goday 10 goobood waxaa kaloo ku jira boqorka tafaaska in dad badan oo baahi iyo nolol xumo ay haysatay markaan soo dejinay isbedel weyn inuu helay inuu helay caafimaad inuu helay hoy kii hore isku noolaa ka wanaagsan oo uu dhistay guri umana dhamaystiran oo muhiim sadarteed waxaan leeyahay dawladda umama dhamayn karo waxay noo qabatay dib u dejinta ilaahay baa mahadle ragga dib u curashada dhaqdhaqaaq badan ayay sameeyeen wayna dhiirigeliyeen baadiyahay dadkii danyar tahay oo dhan ka soo rareen degmaday soo dejiyeen waxay ka dhaadhiciyeen mugdi inay ku jireen haddana ay iftiin u baxayaan caruurtoodii baa waxbarashadii la geeyay isbitaalkii baa la geeyay way dadkii iyo haweenkii iyo magaranaysaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa beeruhu way noo fiican yihiin abuur baa nala siiyey shidaal bay dawladdu na siisay noo beeran yihiin motoorkuna wuu noo socdaa. Cumar Cabdi telefishinka caalamiga ee Soomaaliya Jigjiga.